kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba ku soo dhowaada qaybtii 15aad ee buugga sheekafaneed ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta 15aad ee buugguna waxa ay ku bilaabmaysaa sida tan. galabtaas cadar duwane waxa ay la ballansanayd saaxiibadeed Caasha Dheer, Aamina Xayeysi iyo Xaliimo Daahir oo ay isu raaci lahaayeen xaflad loo sameynayay gabadh ay Xamdi Gaaba habaryar u tahay oo shaash saar lahayd. cadar oo kursi daaradda yaalay ku fadhida oo cilaankii u marsanaa gacmaha ka tirtiraysa ayaa baabuur hoonka ka soo yeedhiyay albaabka bannaankiisa. markiiba odaygii Aw Muuse ee waardiyaha ahaa ayaa degdeg u booday oo albaabkii gaadhiga ka furay, kadibna gaadhigii ayaa gudaha soo galay. cadar duwane ayaa markay gaadhigii iyo Cawaale garatay cadho kax tidhi. intay indhaha ku biniinisay cidda gaadhiga gudihiisa ku jirta ayaa markay aragtay in aabbaheed Cawaale la socdo ayay kacday oo qolkeedii gashay. cadho ku biirtay darteed ayay ka baqday inay Cawaale aabbaheed hortiisa kula dagaalanto. xaaji duwane ayaa inta uu gaadhigii ka soo degay cadar ka dabagalay qolkeedii. Cawaalena inta uu shandad weyn oo hadiyad uu cadar Talyaaniga uga keenay ku jirtay gaadhigii ka soo dejiyay xaggii qolkii fadhiga u dhaqaaqay. Saxarlo oo xaragada iyo quruxda ka muuqata aad ka yaabaysid oo shandadii saafi soo siisay laalaadinaysa ayaa waxay ka soo degtay albaabkii dambe ee gaadhiga. odaygii Aw Muuse oo Saxarlo quruxdeeda ka yaabay ayaa yidhi, maasha Allah, adeer waanba ku garan waayey. ilaa iyo maalintii ay cadar duwane u timid Saxarla, madbuhu waxa uu u ahaa hoyga keliya ee ay leedahay. iyada oo aan waxba u jawaabin, Aw Muuse ayay xaggii madbaha u dhaqaaqday. madbixii oo alaabtii isdhex taadsan tahay oo aan maalintii oo dhan la maydhin ayaa intay gashay ay isdhex taagtay. kadibna intay shandadii meel gees ah dhigatay ayaa waxay bilowday in weelkii kala nidaamiso kadibna ay xasho. iyada oo weelkii xalaysa ayaa cadar duwane u soo gashay. intay isdul taagtay Saxarlo oo fadhida indhahana aada ugu gubtay ayay weydiisay meesha ay ku maqnayd. intii aanay Saxarle u jawaabin ayay intay dhaqaaqday ku tidhi, shaahii kari marka aan kaa shaqeeya ayaad ka jawaabi doontaaye. markay albaabkii madbaha ka baxday ayaa intay haddana dib u soo eegtay Saxarle ku tidhi, naayaad isu dhalaalinaysaa oo dharka ku soo siiyey. waxba uma ay jawaabin. Saxarliyo shaqadii weelka ay xalaysay ayay halkii ka sii wadatay. inkasta oo buuqa iyo dooda cadar iyo xaaji duwane ka dhex taagnaa bannaanka laga maqlayay, haddana wax ay xaqiiqa ahaan uga wada hadlayaan cidina si fiican uma ay maqlayn. inkasta oo ay hubaalahayd in ujeedada ugu weyn ee xaaji duwane uu cadar qolka ula galay ay ahayd inuu xal u raadiyo dhibaatada iyada iyo Cawaale ka dhex taagan. inkasta oo ay xaaji duwane caado u ahayd inuu dhexdhexaadiyo markay cadar iyo Cawaale iskhilaafaan, inta badanna ku guulaysan jiray. khilaafkani waxa uu ahaa kii ugu adkaa ee uu xaaji duwane waajaho. muddo 2 saacadood ku dhow markii xaaji duwane iyo cadar qolkii ku wada jireen ayaa xaaji duwane inta uu albaabkii qolka soo istaagay wiil yar oo uu awoowe u yahay oo daaradda taagnaa ku yidhi, awoowe u yeedh aabbaha. Cawaale oo warwarsan oo ka baqaya in ay cadar dhafoorka ku dhufato ayaa qolkii jiifka ee xaajiga ku sugaya afaafkiisa soo istaagay. xaaji duwane oo markii uu arkay Cawaale oo shakisan ayuu ku yidhi, maad soo gashid. kadibna isaga oo shandadii weyneyd ee hadiyadda cadar ku jirtay laalaadinaya ayuu qolkii hore u galay. markii uu gudaha galayna xaaji duwane ayaa ku yidhi, albaabka xidh si aan loo maqal waxa ay ku wada hadlayaan. markii uu Cawaale albaabkii xidhay wax yar kadib ayay cadar duwane albaabkii furtay oo odaygii Aw Muuse ee waardiyaha u yeedhay oo fariin u fartay dumarkii saaxiibadeed ee ay ballansanaayeen in aanay raaci karin oo ay mashquulsan tahay. habeenkaas qorshihii xafladii shaash saarka ee ay ka qaybgeli lahaydna halkaas ayaa cadar kaga baaqatay. su-aasha ugu weyn ee dad badan ee habeenkaa isweydiinayeenna waxay ahayd in haba yaraatee ay suurtagal noqon doonto in cadar iyo Cawaale mar kale sariir ka soo wada toosi doonaan. cadar waxa ugu weyn ee ay rabtay may ahayn inay ogaato sababta ku kaliftay in Cawaale muddadaas badan maqnaado, ee waxay rabtay inay ogaato meesha uu ku maqnaa.
muddadii dheerayd ee ay saddexdoodu qolkii ku wada jireenna Cawaale waa la soo marsiin waayey in uu naag kale ku maqnaa. Markii ay ka soo wareegtay in ka badan 3 saacadood ayay Xaaji Duwane iyo Cawaale oo wada socdaa qolkii ka soo baxeen. Kadibna iyagoo labadoodiiba aamusan yihiin oo aan isla hadlayn ayay gaadhigii Cawaale galeen si uu Xaaji Duwane gurigiisii u geeyo. Intii ay sii wada socdeenna kelmad isma ay odhan oo labadooduba way aamusnaayeen. Markii uu Cawaale soo hoyday waqti dambe ayay ahayd oo dadka oo dhami wada seexdeen marka laga reebo Saxarlo oo weli madbaqii hawl ka haysa. Waagii ayaa bariyay. Sidii caadadu ahaydna Saxarli waxay bilowday inay quraacdii diyaariso. Sida lagu yaqaanay Cawaale hiirta waa bari ayuu dheelman jiray. Hase ahaatee subaxdaas isaga iyo Cadar midkoodna qolka kama soo bixin ilaa laga gaadhayay 11kii aroornimo. Markaas oo Cadar intay albaabka soo istaagtay ay Saxarlo u sheegtay inay quraacda u keento. Kadibna markay quraacdeenna Cawaale iyo Cadar magaalada ayay isu raaceen. Cadar inkasta oo aanay ka rumaysan sheekadii Cawaale isku difaacay iyo dafiraadii uu ku adkaystay inaan haweenay kale meel u joogin, haddana waxay isku qancisay in hadday dagaalka iyada iyo Cawaale ka dhaxeeya sii wado oo inta uu xanaaqo furi doono oo haweenayda u qarsoon si rasmi ah ugu guuri doono. Fikradaasina waxay ahayd mid iyada iyo saaxiibadaheed hore isula qaateen. Sida deriska iyo haweenkii aad ugu dhawaa Cadar markii dambe laga maqlay, waxa la sheegay in Cawaale xaal aad u fara badan siiyay Cadar si uu ugu aamusiyo. Waxa la sheegay in xaalka ay ka mid ahaayeen lacag, dahab iyo weliba ballanqaad ahaa inuu Talyaaniga oo ay aad u jeclay tamashle ugu kaxayn doono. Inkasta oo Cadar xaal iyo adduunyo qaadatay, haddana waxay sida wadkeeda u hubtay in Cawaale haweenay kale meel u joogtay. Waxa kale oo ay xisaabta ku darsatay in muddadii Saxarli guriga ka maqnayd ay gurigaas naagta kale lagu qaba mooyee aanay guri kale joogin. Waxa kale oo ay Cadar ogeyd inay Saxarli qof aad u calool adag tahay oo si kasta oo ay u garaacdo aanay warkay ka raadinaysay iyo meeshay ku maqnayd u sheegi doonin. Sidaas darteed waxay Cadar ku tashatay inay xeelada bedesho oo Saxarla khiyaamayso si ay warkay ka raadinayso uga hesho. 3 cisho markay ka soo wareegtay maalintii iyada iyo Cawaale la heshiisiyay ayay Cadar qolkeeda Saxarla ugu yeedhay. Waxay ahayd goor galab ah oo xoogaa roob shuux ahina daayo. Saxarlo oo gacmuhu qoyan yihiin oo weelkii ay xalaysay looga yeedhay, indhahana qiiqii ka galay dartiis ilma ka socoto ayaa albaabka qolkaysa soo taagtay. Markay Saxarli qolka soo gashay, Cadar waxay ku dangiigtay sariirteedii weynayd iyada oo xagga dambe dhowr barkimo oo waaweyn iskaga soo tiirisay. Waxa indhaha Saxarle ka muuqatay cabsi badan. Waxaanay isu diyaarisay inay albaabka dib uga boodo hadday Cadar nabar ku soo tuurto. Cadar ayaa Saxarle inta ay sariirtii xaggeeda dambe ee cagaheeda u dhoweyd gacanta ugu fiiqday ku tidhi, "Habar yar, halkan fadhiiso." Saxarlo oo toobkay gashanaydii dhowr meelood ku qoyanaa ayaa intay maradeedii hoos u dhugatay haddana Cadar xaggeedii jaleecday. Cadar oo fahantay inay Saxarli sariirta qoyaanka kala xishoonaysa ayaa intay mar kale sariirtii gacanta ugu fiiqday ku tidhi, "Habar yar, macno ma laha ee iska fadhiiso." Intay si tartiib ah u soo dhuukisay ayay iyada oo is ururinaysa sariirtii dhinac kaga fadhiisatay. Saxarle waxaa maskaxdeeda ka weynaatay sida wanaagsan ee Cadar ula dhaqmaysa iyo inay weliba u ogolaatay inay sariirteeda ku fadhiisato. Inkasta oo ay Saxarli sariiraha guriga yaallo oo dhan gogli jirtay, haddana weligeed mid keliya kumay fadhiisan. Waxaanay ahayd markii ugu horreysay ee arrintan oo kale dhacday. Khudbad dheer ayaa Cadar u akhriday Saxarla. Waxay u sheegtay inay sida naxariis darrada ah ee ay ula dhaqanto ka xun tahay. Waxaana ay u sheegtay in Saxarle hooyadeed weris ay aad u jeclayd oo markay yaryaraayeen isugu ballan qaadeen in haddii mid dhimato ay tan kale carruurteeda korin doonto. Waxayna Cadar bilowday in ay oohin been ah iska keentay iyada oo garbasaar wejigeeda ku qarinaysa. Waxa kale oo ay u sheegtay inaanay marna ula kac iyo kas iyo maan ugu tashan inay gabadha yar ee rajada ah waa Saxarle ee ay walaasheed dhashay silciso ee uu shaydaan qaatay. Waxay u sheegtay in markay xumaan ku samaysaba ay ballantii walaasheed soo xasuusato, kadibna ay qolkeeda murugo darteed isku soo xidho iyada oo barooranaysa oo falkaas xun ka qoomamoonaysa. Waxay eedii oo dhan dusha ka saartay Cawaale oo ay tidhi waa nin musuqmaasuq badan oo intaas naaga kale ku dul wadaa. Waxa kale oo ay u sheegtay in markii Cawaale ficilkaas xun kula kacaba iyada oo aan isogeyn ay iyada oo ay ka wada Saxarla ku sanifto. Deedna
iyadoo iska oohinaysa oo hoos eegaysa ayay saxarla ku tidhi, habar yar, waxa aan rabaa in maanta laga bilaabo aan habar yar wanaagsan noqdo, kaana xaal mariya wixii aan xumaata kugu samayn jiray. waxaanse kaa codsanayaa in aad ii sheegtid naagta aad la joogtay ee Cawaale qarsanaya magaceeda. kadib markii aanay saxarli muddo 5 daqiiqo ah waxba odhan oo aamusnayd ayaa Cadar ku tidhi, ii sheeg habar yar, waxba kugu dhici maayaane. iyada oo hoos eegaysa oo cidiyaha fadhaysa ayay cod gaaban ku tidhi, ma aqaan. Cadar oo awalba ogeyd in aanay si fudud saxarla war uga soo saari karayn ayaa ku tidhi, habar yar, iska ilow, macno ma lehe, mar kale ayaynu ka sheekaysan doonaaye. waxay saxarla u sheegtay markay waxba ka soo saari weyday inay iska dhaafto weelkii ay xalaysay oo yara nasato. saxarla oo aan mugdi ka saarnayn ujeedada iyo waxa ka dambeeya hadalka Cadar ayaa iska kacday oo madbixii ku noqotay. saxarla oo madbixii fadhida oo weelkii xalaysa ayaa Cadar ka daba tagtay. intay Cadar isdul taagtay saxarla ayay ku tidhi, habar yar, miyaanan ku odhan iska naso. intay kor u eegtay saxarli iyada oo aan kelmad odhan ayay weelkii ay xalaysay ku jeesatay. Cadar oo qadho isku calcalinaysa ayaa saxarla ku tidhi, habar yar, miyaanan kugu odhan weelka iska daa, bal soo kac. waxay geysay qolalkii martida mid ka mid ah oo ay saxarla lafteedu si fiican u soo gogoshay. waxayna u sheegtay in maanta laga bilaabo ay qolkan seexan doonto, gurigana ay gabadh shaqaale ah u qaban doonto, iyadana ay iskuul ku dari doonto si ay wax u barato. saxarla caad kama saarnayn waxa Cadar u dig iyo dam leedahay, hase ahaatee kelmad may odhan oo wixii Cadar u sheegtaba way iska qaadatay, iyada oo weliba og inaanay nasashada iyo raaxada ku waarayn ee hadday saafi sheegta iyo haddaanay sheeginba ay hawsheedii hore ku noqon doonto. inkasta oo ay Cadar jeclaan lahayd in saxarli si degdeg ah ugu waranto oo haweeneyda u qarsoon Cawaale sheegto, haddana dareenkeedu waxa uu u sheegay inaanay si fudud saxarla war uga soo saari karin oo ay u baahan tahay inay u samirto. waxa kale oo ay Cadar isku qancisay inay kalsoonida saxarla kasbato, tustana waxay tahay nolol aan ciqaab lahayni. waxay rabtay in marka saxarli nolosha wanaagsan la qabsato ay mar walba ka walwasho inay dib ugu noqoto silicii iyo saxarli ku noolayd, kadibna warka ay qarinayso u sheegto. siday ku ballan qaaday Cadar shaqada badankeedii way ka joojisay saxarla. shandadeedii yarayd ayay madbixii ka soo qaaday oo qolkeedii u dhigtay. maalintay shaqada ka joojisay maalintii ku xigtayna Cadar intay saxarla suuqa geysay ayay dhar u soo iibisay. maadaama aanay saxarla iskuulka caadiga ah ee caruurtu dhigato lagu darinna, waxa maamulkii iskuulka ee xaafadda u dhowaa u sheegay Cadar inay dhigan karto iskuulka habeenkii la dhigto ee dadka waaweyn. saxarli muddaday iskuulka dhiganaysay waxyaabo badan ayay ka faa'iiday. qoraalka af Soomaaliga oo ay si fiican u baratay kasakow, waxa ay la kulantay hablo xaaladeeda oo kale ku sugnaa, aadse uga da'weynaa oo eheladooda iyo qaraabadooda adeegtooyin u ahaa. sababta ugu weyn ee hablahaasi habeenkii wax u baranayeen waxay ahayd sidii ay uga xoroobi lahaayeen cabiidsiga iyo nolosha adag ee ay ku jiraan. maadaama ay kulligood ka da'weynaayeen saxarla, waxay dhammaantood ku waaniyeen inay dadaal dheeraad ah samayso si ay uga xorowdo nolosha ay ku sugan tahay, waxbarashadeedana sii wadato. waxay muddadii yarayd ee ay iskuulka dhiganaysay si fiican ula saaxiibtay Hodman Xaaji oo ay aad uga wada sheekaysan jireen noloshooda iyo waayihii ay soo mareen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin. Hodman oo edadeed la joogtay waxay u xaqiijisay in dhibaatada saxarla la soo mariyay ama ay ku sugan tahay aanay iyada uun gaar u ahayn ee ay la wadaagaan hablo badan oo eheladooda ama qaraabadooda la jooga. waxa kale oo ay Hodman u sheegtay saxarla in inkasta oo ay edadeed la joogto ay hablaha kale ee jaariyadaha ah ee shisheeyaha u shaqeeya ee ay taqaano ay ka nolol wanaagsan yihiin. muddaday Cadar saxarla wanaagga kula dhaqmaysay waxaa ka soo wareegtay 3 bilood. inkasta oo Cadar u ballan qaaday saxarla inay hawsha guriga ka joojin doonto, haddana Cadar way ku adkaatay inay ka maaranto saxarla, waayo maadaama ay Cadar ruux aad u kulul ahayd, gabadh kasta oo shaqaale ah oo ay keentaaba 5 cisho kadib ayay ka carari jirtay. sidaas darteed
saxarla howlaha ugu muhiimsan ee guriga laga qabtay iyada ayaa samayn jirtay. Muddadaas saxarla hawsha laga yareeyay, caruurtii cadar duwana dhashay gaar ahaan Dabeeco oo ay saxarle adeegto u ahayd, markiiba masayr ayaa galay, waxayna ka muraara dilaaceen in iyaga iyo jaariyadii waa saxarle ee u shaqayn jirtay ay hooyadood isku si ula dhaqanto. Dabeeco oo iyadu saxarla si gaar ah ugu shaqayn jirtay ayaa markii shaqadii ay u qaban jirtay ka weyday waxay bilowday inay dibindaabiyeyso, mar ay candhuuf ku tufto, laad ku kiciso amaba dharkeeda ka jeexjeexdo. Inkasta oo ay cadar iyo inanteedu maalin walba ku murmi jireen, waxaa jirtay maalin ay gacan isula tageen kadib markay saxarlo oo iskuul u socota ay Dabeeca ku tidhi ha bixin ee timaha ii feedh. Markay saxarle diidayna intay ka daba oroday iyada oo albaabka kasii baxaysa ay timaha ku soo dhegtay oo dhulka xoog ugu dhufatay, buugteediina intay la oroday burjiko dab ah oo baxaysa kaga riday. Markay saxarle dhulka ku dhacday waxaa gaadhay dhaawac madaxa ah oo dhiig badan sababay. Kadib markay cadar aragtay dhaawacii iyo ficil xumadii ay Dabeeca geysatayna intay soo oroday ayay dhirbaaxo uga soo jartay. Dabeeca kama gaabsane dhirbaaxo ayay hooyadeed indhaha ku muudsatay, waxaana dhex maray dagaal ay cag iyo cidiba isula tageen oo iska daa dadkii guriga joogaye xaafadii oo dhammi isugu soo baxday. Inkasta oo saxarla dhaawac weyni gaadhay, haddana way diiday inay iskuulkeedii ka habsaanto, waxayna albaabka ka baxday iyadoo cadar iyo gabadheedii weli la kala celinayo. Cawaale laftiisu si fiican ayuu la socday waxyaalaha meesha ka socda iyo sababta cadar wax uga bedeshay sidii ay saxarle ula dhaqmi jirtay. Wuxuuna bilaabay in markasta oo uu fursad u helaba uu si gaar ah ula hadlo saxarla, xasuusiyana ballantay hore u galeen ee ahayd in haddii wax kastaa dhacayaan aan mar keliya afkeeda laga maqal saafi. Waxa kale oo uu Cawaale si fiican ula socday in hawsha saxarle laga joojiyay aanay cadar naxariis ka ahayn ee ay doonayso inay ku beerlaxawsato oo ay khalado. Haddii ay waxba u sheegi weydana ay cadaadiskeedii halkii ka wadi doonto. Waxay saxarle ku dhex dhimatay laba qof oo ay midna ixtiraamaysa midna lafaheeda uga baqayso. Arrin joogto ah ayaa cadar u noqotay in ay maalin walba saxarle weydiiso sheekada saafi. Markii saxarle afkeeda waxba ka soo bixi waayeen, cadar arrintaasi way culaysisay, waxayna bilowday in maalin walba isla hadashay iyada oo leh ma jiro intaas in ka badan inantan yarna ma sugayo. Wax kasta uu sameeyay mana raba inay runta ii sheegto, aniga ayaa aqaanay iska dhaaf ayay isku qancisay. Maalin kadib markii cadar iyo Dabeeca dagaalameen ayaa saxarlo markaas labisatay oo doonaysay inay iskuulkii tagto ay cadar qolkeeda ugu yeedhay. Waxay u gashay cadar oo sariirteedii kusoo dangiigtaa, wejigeedana cadho ka muuqato. Intay sariirtii ay 3 bilood ka hor gacanta ugu fiiqaysa xaggeedii dambe farta ugu fiiqday ayay ku tidhi fadhiiso halkaas. Iyadoo oo labada lugood baqdin darteed gariirayaan oo is ururinaysa ayay sariirtii gees kaga fadhiisatay. Muddo dhowr daqiiqo ah ayay wejiga saxarla si kulul ugu gubtay iyada oo aan kelmad ka odhan. Wadnaha ayaa xoog u boodbooday saxarla cabsi darteed, waxayna xasuusatay dhibaatadii iyo dhaawacii hore ay ugu geysatay. Waxa kale oo ka sii bajiyay waxa ay gashanayd dharkii maalintii hore ee ay dishay ay gashanayd. Kulaylkii indhaha cadar inta ay u adkaysan weyday ayaa intay hoos u runduudsatay ay bilowday inay 10keedii farood isdhex geliso oo ay calaacalaha isku xoqdo. Intay cadar si kadisaha ugu booday gacantii saxarle oo xaggeeda u soo jiiday ayay ku tidhi naa i dhegayso fadhi xumey, raaxadii iyo wanaaggii wuu kaaga daray, ixtiraam iyo sharafna ma lihid ee haddii aadan ii sheegin naagtii aad gurigeeda joogtay, kan cad iyo kan madow ayaan ku kala siibayaa, ba'i iyo balanbalkiina waan kugu celinayaa. Saxarle oo og inaanay si kale ku badbaadayn inay ka baxsato mooyaane ayaa intay degdeg sariirtii uga booday xoog u gundhisay gacantii ay ku haysay si ay isugu dayday inay ka baxsato. Waxay ahayd markii ugu horreysay intay la joogtay ee ay isku dayday inay ka baxsatay iyadoo garaacaysa. Kadibna intay xoog u xanaaqday ayay dhirbaaxo labada indhood ku fujisay. Dhirbaaxadii xooggeedii ayaa sariirtii ka tuuray saxarle, kadibna dhulka oo sibidh ahaa ayay xoog ugu dhacday. Iyada oo dhirbaaxadii iyo dingaraadii sibidhka ay ku dhacday la dawaqsan ayay isku dayday inay cararto. Meeshii ay xagga albaabka aadi lahayd ayay waxba arki weyday, xidigo hor yaacaya mooyaane.
kadibna waxay u carartay dhinaca gidaarka oo ay madaxa la heshay, kadibna dhulka ayay ku dhacday. iyada oo markii horeba dhirbaaxadii Cadar Duwane ku dawaqtay ayaa gidaarkiina ugu sii daray oo miirkii ka qaaday. Cadar oo aan hubsan in Saxarle suuxsan tahay iyo in kale ayaa intay markiiba isku sii daysay xaggeedii ay dusha kaga habsatay oo cunaha ku dhegtay. wax yar markay cunaha haysay ayay aragtay tii yarayd oo labadii indhood dhinacii caddaa isu rogeen, afkana xunba ka sii daynaysa. intay naxday oo ay mooday inay naftii ka baxayso ayay madaxeedii kor u soo qabatay, iyada oo isku dayeysay inay indhaha meeshoodii hore ku celiso. dhowr jeer ayay gilgishay iyada oo leh Saxarla may maqlaysaa. inkasta oo ay ka baqaysay in dhimashadeeda lagu qabsado, haddana waxaa kaga sii darnayd oo markiiba maskaxdeeda ku soo dhacay inay ka walwasho in iyada oo aan warkii naagta Cawaale qarsanaya u sheegin dhimato. iyada oo naxsan ayay intay kor u booday albaabkii handaraabka hoosta ka gelisay. markay albaabkii ka soo laabatay ayay aragtay Saxarle oo indhaheedii meeshoodii ku soo noqdeen oo miirsatay, laakiin weli u eg sidii wax siriirsan. intay ku dul fadhiisatay ayaa calaacalaheedii weynaa cunihii yaraa kaga qabatay oo ku tidhi, naama sheegaysaa naagta mise kow ayaan kaaga siiyaa. Saxarle ayaa cod yar oo daciif ah ku tidhi, isiidaa. intay ceejo ku qabatay ayay ku tidhi, naayaa wax ma maqlaysaa? maanta waad dhimanaysaa ama naagtii ayaad sheegaysaa. sidii ay marna u ceejinaysay marna uga sii daynaysay ayay Saxarle markii dambe naftii u yaabtay oo rumaysatay inay ka dhab tahay oo ay nafta kaga goynayso. waxa ay ugu dambeyntii sheegtay in naagta Saafi magaceeda la yidhaahdo. inkasta oo ay garan weyday meeshay degan tahay, waxay u sheegtay inay dhakhtarka ciidamada ka shaqayso. kadib markay u sheegtayna, intay ka dulkacday oo laad kusii dhufatay ayay ku tidhi, iiga bax qolka kalbad yahay. Saxarle oo daandaansan oo weli wareerkii ku jira ayaa damacday inay cararto, kadibna albaabkii oo xidhan ayay madaxa ku dhufatay. gidaarka ayaa intay cuskatay albaabkii iska furtay, kadibna orod isa sii daysay. maadaama ay dawaqsanayd, markii albaabkii ka soo baxdayba waxay ku siibatay jaranjaradii afaafka, kadibna iyada oo dildiloonaysa ayay bartamaha daaradda ku dhacday. anigoo aradan anfacana dhammaan afka saarinkan eedaadaya Aw Muuse oo markii horeba tuhun ku jiray inaanay Cadar wax kale ugu yeedhin Saxarle inay disho mooyaane, ayaa inta uu booday labada garab qabtay oo isku dayay inuu istaajiyo. hase ahaatee, muddo saacad barkeed ah ayay ku qaadatay in uu lugaheeda ku istaajiyo, waayo mar walba markay wax yar taagnaata ayay dhulka ku dhacaysay. odaygii Aw Muuse oo Saxarle garabka hayo oo xaggii madbaxa usii tukubinaya ayaa waxaa albaabka ka soo galay Cawaale. maxaa ku dhacay gabadha ayuu markiiba Aw Muuse weydiiyey. Aw Muuse ayaa ugu jawaabay, Cadar weydii. Cawaale oo markiiba wejigiisa cadha buuxisay ayaa xaggii qolkii ay Cadar ku jirtay u dhaqaaqay. odaygii Aw Muuse oo madbaxii ku jiro oo weli Saxarle garabka haya oo gambadh ku fadhiisinaya, ayaa waxa uu maqlay sanqadh weyn oo xaggii qolkii Cadar iyo Cawaale kaga timid. bannaanka ayuu u booday, mise markiiba waxaa indhihiisu ku dhaceen Cawaale oo jaranjaradii albaabka geylaansan oo dhiig wejigiisa ka qulqulayo. Aw Muuse inta uu labada gacmood madaxa saaray ayuu yidhi, innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Saxarle ayaa iyaduna intay odayga qayladiisii ku soo baxday albaabka madbaxa soo joogsatay, waxay aragtay Cawaale oo dhulka jiifa oo dhiig ka qulqulayo oo Aw Muuse madaxa kor u hayo oo isku dayay in uu dhiigga joojiyo, isagoo meeshii dhiiggu ka socday calaacasha ku cadaadinaya. inkasta oo Saxarle guriga Cawaale si xul loogu silcin jiray, haddana waxay mar walba isaga u arki jirtay inaanu qayb ka ahayn cadowga ay hogaamiyaha ka ahayd Cadar Duwane. inkasta oo aanu Cawaale weligii Saxarle aabba ka odhan, haddana waxa uu ugu jiray kaalintii aabbanimo, maadaama oo aanu jirin aabba kale oo nolosheeda ka warhaya. intay xanuunkii hayay ilowday ayay orodaysa sii daysay si ay Aw Muuse u caawiso. markay isdul taagtay ayay iyada oo naxdin gariiraysay intay agtiisa fadhiisatay damacday inay gacanta madaxa ka saarto. gacantii oo gariiraysa ayay dib ula soo noqotay,
kadib markii uu Aw Muuse ku qayliyey ee uu ku amray inay dibadda u baxdo oo darawalkii u yeedho. Orod ayay dibadda isku sii daysay. jardiinadii guriga dibaddiisa ee uu fadhiisan jiray darawalku ayay ka weyday. kadibna waxay isku sii daysay goobaan guriga ka fogeyn oo uu Dalmar saaxiibadiis turub kula ciyaari jiray. Saxarlo oo xishood iyo deganaan u dhalatay ayaa intay naxdintii is-ilowday darawalkii oo turub dhigaya garabka intay ka qabatay dhowr jeer gilgishay oo ay ku tidhi, adeero waa la dilay soo kac, adeero waa la dilay soo kac. isaga oo yaaban ayuu inta uu kor u eegay ku yidhi, adeerkaad sheegaysaa waa kuma. iyada oo weli wejigeedii naxdin iyo cabsi aad u weyni ka muuqdaan ayay ugu jawaabtay, adeer Cawaale. cidda dishay inta uu weydiiyey ayuu markiiba si degdeg ah isu taagay, isaga oo weli turubkiina gacanta ku haya. nin dheer oo dul taagnaa ayaa intaanu darawalkii weli dhaqaaqin ku yidhi, warkeen kuu sii qabte. Saxarlana intay orod isa sii daysay ayaa xaggii guriga u noqotay. Saxarle iyo darawalkii oo waxyar kala dambeeyey ayaa albaabkii ka soo galay. waxay arkeen Aw Muuse oo Cawaale intuu meeshii dhiigu ka socday mara kaga duubay weli madaxiisa kor u haya. darawalkii inta uu Cawaale isa soo dul taagay oo gacanta qabtay isaga oo isku dayaya in uu istaajiyo ayuu Aw Muuse ku yidhi, war odayga gaadhiga soo geli, mara dhiig ma celinayse. Aw Muuse oo kor u hinjinaya Cawaale ayaa darawalkii ku yidhi, Dalmar, ninkan in nafi ku jirto u malayn maayee aan qaadno. intay markiiba la carareen ayay gaadhigii ku rideen. kadibna Dalmar ayaa intuu gaadhigii kiciyey xoog weeriyey. dariskii oo dareemay in guriga dhiila ka dhacday ayaa albaabkii bannaanka ku soo xoomay. waxaase markiiba albaabkii xidhay Saxarlo oo dadkii u sheegtay inay meesha ku kala tagaan. Saxarlo oo aad u ixtiraam badnayd, weligeedna aan dadka cod kulul kula hadli jirin ayay dariskii albaabka ku soo ururay la yaabeen. deedna gabadh dhalinyaro ah oo ka xanaaqday albaabka ay ka xidhatay ayaa Saxarlo ku tidhi, allah, fadhi xun maxay ismooday. markiiba dhowr dumar ah ayaa inantii hadalkaas tidhi afka jabsaday, iyaga oo ka xanaaqay inay Saxarlo ugu yeedho magaca xaqiraada ah ee Cadar Duwane iyo caruurteedu ugu yeedhi jireen. dadkii dibadda tubnaa oo weli ka murmaya hadalkii Saxarlo lagu yidhi iyo sababta odayga Cawaale dhakhtarka loogu qaaday ayaa waxay arkeen dhiig ka soo qulqulaya albaabkii ganjeelada ahaa hoostiisa. Cawrala cabsiye oo mar dambe dadkii albaabka ku xoonsanaa ku soo biiray ayaa intii ushii ay ku tukubaysay dhulka dhowr jeer jug ku siisay, iyada oo madaxana ruxaysa tidhi, wallaan cidina ii sheegeen cidda dhiiggaasi ka daatay. waa rajadii yarayd ee khamradu u qaban jirtay haweeneyda guriga leh. haa, khamrad ayaa u qabata haddii aanay dhowr jeer maalintii dilin. haweeney aada u da-weyn oo dadkii meesha taagnaa ka mid ahayd ayaa tidhi, ee Cawralaay, ha dambaabin, aniga ayaa arkayay qofka la sii siday waxa uu ahaa odaygii guriga lahaa ee Cawaale. waxaa ka soo wareegtay qiyaastii saacad iyo badh markii Cawaale dhakhtarka loola cararay. Saxarla ayaa baaldi biyo ah soo qaadatay si ay u maydho dhiiggii Cawaale ka baxay ee daaradda dhex qulqulayay. intii lala rafanayay xaaladda dhaawaca ee Cawaale, Cadarna sariirteeda ayay intay madaxa iyo mijaha duubtay oo hinhiiqda haysay. iskumana ay shidayn inay dibadda u soo baxdo oo ay eegto xaaladda odaygeedu ku sugan yahay. waxay dhowr jeer niyadda ka tidhi, ilaahayow muu nabarkaasu dhinto. markay baaldigii biyaha ahaa ee ugu horreeyey ay dhiiggii ku dul butaacisay ayaa Cadar oo wejigeeda cadho aad u badani ka muuqato albaabkii qolkeeda soo joogsatay. inkastoo aanay Cadar dani ka hayn dhaawaca gaadhay Cawaale, haddana waxaa filawaa ku noqday dhiigga sidaas u tirada badan ee ilaa bannaanka u baxay. waxaa markiiba ku abuurmay welwel, waxaana shaki ka galay in uu dhintay iyo in kale. iyadoo iska calool adeygaysa ayay tidhi, ha dhinta hadduu rabo. Saxarlo oo markay aragtay Cadar oo bannaanka u soo baxday xoog u baqatay ayaa intay maydhistii dhiigga joojisay dib u guratay, iyada oo weli baaldigii oo biyo ka buuxaan midigta ku laalaadinaysa. Cadar oo cadho xoog lihi wejigeeda ka muuqato ayaa ku tidhi Saxarla, naamay dhiigga lagu qaniiniye, maxaad u taagan tahay ood u shaqay laadahay. inkasta oo Cadar calool adayg isku dayday, haddana waxay xajin kari weyday welwelkii ay ka qabtay xaaladda Cawaale ku sugan yahay.
ayaa si aan wejigeeda looga dareemin jaahwareerka iyo murugada qolkeedii dib ugu laabatay oo madaxa iyo mijaha martay iyada oo isku dayeysay inay isilowsiiso warwarka iyo walbahaarka. Dalmar ayaa hoonkii gaadhiga aada u garaacay markii uu albaabkii cisbitaalka ciidamadaysa soo hortaagay. Askari caata ah oo qori AK-47 ah la leecaya ayaa inta uu albaabkii furay darawalkii indhaha ka galay ku yidhi, "Warnaga jooji hoonka." Intii aan darawalkii u jawaabin ayaa askarigii gaadhiga xaggiisa dambe ka halacsaday Cawaale oo dhiig ka da-ayo oo odaygii waardiyaha ahaa madaxa kor u hayo. Askarigii ayaa albaabkii si degdeg ah u furay kadib markii uu Cawaale aqoonsaday oo yidhi, "War waa Cawaale, war maxaa odayga ku dhacay?" Cawaale aad ayuu caan uga ahaa dhakhtarka ciidamada. Askarta iyo shaqaalaha kaleba intooda badaniba way ogaayeen in Cawaale iyo Saafi isqabaan ama wax ka dhexeeyaan. Waxaa kale oo uu ahaa nin aada ugu gacan furan oo caawiya askarta danyarta ah ee meesha ka shaqeeya. Markii qeybtii gargaarka degdega ah ee dhakhtarka la geeyeyba waxaa markiiba gartay Dr. Roble oo bannaanka sigaar ku cabayay. Markuu darawalkii Cawaale albaabkii ka furayna Dr. Roble ayaa sigaarkii u cabayay inta uu dhulka ku tuuray oo baqtiyey xaggii gaadhiga u dhaqaaqay deedna yidhi, "War maxaa odayga ku dhacay?" Cawaale oo miirkii ku soo noqday intay dhexda ku soo jireen ayaa cod gaaban ku yidhi, "Iska waran Dr. Roble." Dr. Roble ayaa inta uu garab galay u tukubiyey Cawaale albaabkii gargaarka degdega ah laga gelayay. Markay ka soo wareegtay qiyaastii 30 daqiiqo ayuu Dr. Roble darawalkii ku soo laabtay oo ku yidhi, "Muddo dheer ayay qaadanaysaa daaweynta odaygu. Waxay u badan tahay in dhakhtarka la jiifiyo. Markaa hadda iska tag oo berrito ka soo wardoona." Muddo 2 saacadood ku dhow markay sariirtii duubnayd walwalkii Cawaalena kusii batay ayaa Qadar sare fadhiisatay oo taleefankii qabsatay oo saaxiibadeed mid u wacday. Markay u sheegtay waxa dhacay iyo mushkiladda taaganna waxay saaxiibadaheed ballan qaadeen inay kulligoodu iman doonaan. Daqiiqado yari markay ka soo wareegeen ayay taleefankii dib ugu celisay Caasha Dheer, waxaanay weydiisay siday ula muuqatay inay Xaaji Duwane wacdo oo la socodsiiso waxa dhacay iyo meesha xaaladdu taagan tahay. Caasha Dheer waxa ay kula talisay inaanay la hadlin Xaaji Duwane, sababta oo ah ayay tidhi in haddii xaajigu arrintaas maqlo inuu dhakhtarka si degdeg ah ugu cararayo kadibna laga yaabo in adiga kiiska lagu buuxiyo. Waxaa kale oo ay Caasha Dheer kula talisay inay sugto intay uga imanayaan oo aanay wax ficil ah samayn. Cawaale oo 15 qodob la tolay ayaa aakhirtaankii qolkii qalliinka laga soo saaray oo loo wareejiyey qeybta dadka xanuunsanaya la jiifiyo ee Saafi ka shaqaynaysay. Habeenkaas Saafi fasax ayay ahayd oo ma soo shaqo tegin. Gabadha neerasta ah ee habeenkaas Cawaale qaabilsanayd shaqada way ku cusbayd, weligeedna Cawaale ma aysan arag. In uu yahay ninkii Saafi qabayna ma aysan garanayn. Markay subaxdii Saafi shaqadii soo gashay ayay gabadhii neerasta ahayd ee habeenkii shaqaynaysay sariirtii Cawaale farta ugu fiiqday oo ku tidhi iyadoo oo dhoola cadaynaysa, "Odayga sariirtaas jiifa oo xaaskiisii madaxa kala jeexday ayaa xalay soo galay. Inkasta oo 15 qodob la tolayna wuu iska ladan yahay." Cawaale oo madaxiisa intiisa badani mara cadi ku duuban tahay ayay Saafi si fiican u sii eegtay, isla markiibana way garatay. Si degdeg ah ayayna xaggiisii ugu tallaabsatay. Kadibna sariirtiisii intay isdhinac taagtay ayay hoos ugu foorarsatay si ay wejigiisa u hubiso. Intay gacanteedii midig qalbiga iska saartay tab bidixna laabta ka saartay Cawaale ayay ku tidhi, "Cawaale maxaa kugu dhacay?" Cawaale oo bararkii ilaa bishimaha soo gaadhay oo hadalku dirqi kaga soo baxaya ayaa intuu gacantiisii Saafi dul saaray yidhi, "Xabiibi waan iska fiicanahay." Gabadhii neerasta ahayd ee isbitaalka ku cusbayd oo yaaban fahmina la waxa Saafi iyo Cawaale ka dhaxeeya ayaa gabadh kale oo qeybtan ka shaqaysa intay soo dhinac joogsatay oo afka u soo dhaweysay ku tidhi, "Waa ninka qaba Saafi." Gabadhii cusbayd oo yaaban ayaa gabadhii kale sii weydiisay, "Oo tan soo dakhartayna maxay ahayd?" Gabadhii oo gacanteeda afka dhinac kaga daboolaysa si aan Cawaale iyo Saafi midkoodna u maqal ayaa tidhi, "Waa min weyntii." Intay nin sariir u dhow ku jiifo oo qaylinaya xaggiisa u dhaqaaqday ayay tidhi, "Naagaha badan ee la guursadaana dhibkaas ayay leeyihiin." Saafi oo labada indhood ilma ka gabax leedahay diidaysana inay dadka bukaa oohinteeda dareemaan ayaa waxay u dhaqaaqday xagga qolkay shaqaaluhu ku nastaan.
isla markiiba waxaa ka daba tegay labadii gabdhood ee la shaqaynayay si ay niyadda ugu dejiyaan. Markii cadhadii iyo oohintii kasoo kala miirantay ayay Saafi albaabkii dibadda ee dhakhtarka laga soo gelayay tagtay. Waxay gooni ula baxday ninkii askarta albaabka ilaalisa madaxda u ahaa, waxayna ka codsatay inaanu u ogolaan cid Cawaale booqasho ugu timaada. Waxayna si gaar ah ugu sii adkaysay in haweeneyda la yidhaahdo Qadar Duwane iyo asxaabteeda midkoodna aanay albaabka ka soo gelin. Waxa kale oo ay ka codsatay in haddii ay Qadar iyo asxaabteedu telefoon soo diraan loo sheego inaanu Cawaale dhakhtarka ku jirin. Isla galabtaas ayaa Qadar Duwane iyo saaxiibadaheed, qoyskeedii iyo qaraabadeedii oo wada socda ay dhakhtarka yimaadeen. Sidii ballantu ahaydna, ninkii ciidamada albaabka dhakhtarka joogay madaxda ka ahaa wuxuu u sheegay inaanu Cawaale dhakhtarka ku jirin. Inkasta oo aanay Saafi ogeyn in guurkoodii sirta ahaa mar hore kashifmay oo ay Qadar og tahay, haddana waxay dareen ka qabtay inay kolley Qadar isbitaalka imanayso. Markuu askarigii u sheegay Qadar Duwane inaanu Cawaale dhakhtarka ku jirinna, kolkiiba way iska fahamtay in arrinta Saafi ka shaqaysay oo ay u baahan tahay inay la timaado awood ka weyn askariga albaabka xukuma. Waxay go'aansatay inay meesha iskaga hoyatay inta iyada iyo askartu albaabka isku xagxagan lahaayeen. Habeenkaas oo dhan Qadar iyo asxaabteedu waxay isla falanqaynayeen cidda ugu habboon ee arrintan furdaamin karta si ay Cawaale xaaladiisa u ogaadaan. Nasiib darre in muddo ahaydba Qadar iyo Cawaale aad ayuu xidhiidhkoodu u xumaa. Raggii madaxda sarsare ahaa ee Cawaale saaxiibadiis iyo Qadarna xidhiidhkoodu waa sii durkay, maadaama Cawaale uga sheekeeyay dhibaatada ay ku hayso. Intay marba qolo ka daba laabanaysay si ay albaabka u dhaafiyaan ayaa waxaa ka soo wareegtay 2 maalmood oo kale. Cawaalena dhakhtarkii waa laga saaray oo waxa uu tegay gurigii Saafi. Qadarna goor ay xeedho iyo fandhaal kala dhaceen ayay u suurto gashay inay cisbitaalka gasho oo ay ogaatay in Cawaale mar hore ka baxay. Inkasta oo aanay Saafi maalintaas shaqaynayn, haddana iyada oo laga cabsaday inay rabshad samayso ayaa 2 askari lagu daray oo gudaha u raaca. Markii loo sheegay in Cawaale dhakhtarka ka baxayna, Qadar waxa uu caddaatay in aanu meel kale aadin oo gurigii Saafi tegay. Ciil iyo cadho ayaa madaxii wareeray. Kursi dadka bukaanka ah loogu talagalay oo gidaarka ku tiirsanaa ayaa intay ku fadhiisatay madaxa 2 gacmood saartay oo hoos u foorarsatay. Xamdi Gaabo oo dhinac taagnayd ayaa intay garabka ka taabatay ku tidhi, "Abbaayay naga keen meesha." Intay gacantii Xamdi Gaabo xoog iskaga qaaday ayay tidhi, "Idaa Xamdi." Markii ay Qadar hore u kici weyday ayaa 2 askari ee lagu soo daray mid ka mid ahi inta uu gacanta ka qabtay oo kor u hinjiyay ku yidhi, "Naa istaag oo dhakhtarka ka bax, maanta oo dhan kuu taagnaan mayne." Qadar oo ciilka hayay ay markii horeba itaaba ka taagnayd ayaa intay istaagtay askarigii dhirbaaxa indhaha ku muudsatay. Askarigii kale ayaa inta uu markiiba soo booday gacanta midig intuu ku dhegay xoog u maroojiyay oo dhabarkeeda ku laabay. Askarigii ay dhirbaaxdayna intuu markiiba katiinad la soo baxay ayuu gacantii midig intuu ku dhegay damcay inuu jeebeeyo. Qadar qof aad u xoog weyn ayay ahaydee way suurtoobi weyday inay si fudud katiinada ugu xidhaan. Kadibna siday isula rafanayeen ayay dhulka isula dhaceen. Kii ay markii hore dhirbaaxday ayay haddana gacanta qaniye kaga dhajisay, isagiina inta uu feer qaaday ayuu daanka midig kaga gigsiiyey. Markuu askarigii feedhay ayaa saaxiibadaheed Caasha Dheer iyo Xamdi Gaabo oo markii hore isku dayay inay xaaladda qaboojiyaan intay xanaaqeen ay bilaabeen inay dagaalka dhinacooda ka galaan oo askartii kabla dhaceen. Buuqii iyo qayladii ayaa iyaguna waxa maqlay askar kale oo cisbitaalka joogtay. Markiiba intay yimaadeen iyaga oo yaacaya ayay xoog ku jeebeeyeen 3doodiiba. Kadibna iyagoo xoog lagu wada ayaa waxa lagu tuuray qol askartu dadka ku xidho oo dhakhtarka ku dhex yaalay. Qadar Duwane oo cid kasta oo taqaana isla weynideeda iyo faankeeda ka yaabi jireen ayaa si xun oo ihaano ah xabsi yar oo aan wax gogol ahay oolin madax loogu tuuray. Markay 24 saacadood ka soo wareegtay
oo aan cidina war u hayn meeshay ku sugan yihiin ayaa waxaa xanuunsatay Caasha Dheer oo dhiikar qabtay kadibna askartii u ogolaatay inay iska tagto. Muddadii ay xabsiga ku jireen Caasha Dheer iyo Xamdi Gaabo waxay ku eedeeyeen Qadar inay iyadu mas'uul ka ahayd dhibaatada ku dhacday oo dhan. Waxay u sheegeen in dagaal aan loo baahnayn ay gelisay oo balaayada oo dhan iyadu abuurtay. Hase ahaatee Caasha Dheer markii gaadhay gurigeedii waxay taleefan u dirtay Xaaji Duwane oo u sheegtay in inantiisii ay cisbitaalka xoogga ku xidhan tahay. Waxa kale oo ay u sheegtay xaaladdu meeshay marayso iyo in Cawaale ku maqan yahay guriga xaaskii u qarsoonaa oo ay adag tahay sidii lagu heli lahaa. Cawaale waxa uu u ahaa dhammaan reer Duwane cududda ay isku halleeyaan marka arrini dowladda kaga xidhanto. Mar haddii Cawaale meesha ka baxayna Xaaji Duwane ayaa waxay qasab ku noqotay in uu bilaabo ka howlgalka in uu helo cid awood siyaasadeed leh oo Qadar askarta ka soo furdaamisa oo xabsiga ka soo daysa. Isaga oo weliba ka cabsi qaba in maadaama ay askar la dagaalantay laga yaabo in xabsi weyn loo dhaadhiciyo kadibna maxkamad la saaro, ayaa wuxuu raadiyey raggii madaxda ahaa ee ay Cawaale wejigiisa isku barteen. Muddadii Xaaji Duwane halganka ugu jiray sidii uu xabsiga Qadar uga soo saari lahaa, Cawaalena gurigii Saafi ayuu ku nasanayay oo ay ku baaninaysay. Waxa kale oo ay Saafi ogaatay markay dhakhtarkii u shaqo tagtay in Qadar Duwane iyo saaxiibteed Xamdi Gaabo ku xidhan yihiin, waxayna askarta oo ay aad isugu wanaagsanaayeen ku adkaysay in naagahaas cashar lama ilaawaan ah la siiyo. Ugu dambeyntiise markay Qadar iyo saaxiibadeed xabsigii ku jireen 7 cisho ayaa la sii daayay kadib markii Xaaji Duwane rag caawiya uu soo helay. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo afmeeri doonaa qaybtii 15aad ee buugga sheekafaneedda ah ee Saxarla ee uu qoray Faarax Maxamuud. qaybta xigta inta aynu ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.